haddii dhegta ruux la jaro dalalku wuu joogayaa jaleelada geedu yaalla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي ذا قالقة وإذن سلام دمانتين ميلو البوجوكتين وحايد ليها وإذن سلام معايا magacaygu waa Shatuura janaalkeyguna waa Shatuura janaal saaxiibadeyda igu cusub waxaan ka codsanayaa inaysan iga ilmaamin subscribe-ka insha Allah taala iyo like-ta iyo comment-ga hadii ala yiraahdo hadii share aan ugu dari kartana kaba sii qurux badan saaxiibadii hore noola joogay waxaan leeyahay aad u mahadsantiin saaxiibadeyda qaaliga ah waa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan mar walba ila socotaan waa walaashin Shatuura oo mar walba ka hadasho arrimaheena qoyska Soomaaliyeed iyo nolosheena mujtamaceena sida uu ku nool yahay ayaa mar walba taabtaa maanta waxaan rabaa gabdho walaalahay ah oo maxay tahay YouTube kan iga bartay oo maxay tahay Facebook ayga igu xafaranaysi walaa ayaa ila soo xiriiray waxaan i weydiiyeen talooyin badan waxa kamid ah talooyinkaas ay weydiiyeen in mushkilada ka haysta xagga qoyskooda ah ay u baahan yihiin in talo laga siiyo markii lagu leeyahay qof baa talo isoo weydiiyay macnaheedu ma aha qofkaas inaan dhaho waalidkaaga la aad waxa laga yaabaa wax uu waalidkiisa amba ehelkiisa uusan la wadaagi karin adiga oo saaxiibadtiin amba adiga uu ku yaqaano inuu kula wadaago marka ha u fahmin hadii lagu leeyahay qof baa talo isoo weydiiyay inaan la soo boodid markaasba mu ehelkiisa la wadaago mu waalidkiisa la wadaago taas macnaheedu ma ahan qofkaasi inuu siyaa qof xun oo noloshiisa qof kale la wadaagay taas macnaheedu ma aha waa idin salaamaya dhamaantiin inta aanan u gudagelin barnaamijkayga waxaan rabaa hees Jawaahir Xuseen ay ugu soo xujeysatay gabar Jawaahir Xuseen la dhaho saaxiibtay ah oo YouTuber ah YouTube-keedana booqda waxa ugu qoran Jawaahir Xuseen gabadhaas ayaa maxay igu soo codsatay inaan hees ugu soo xujeysatay inaan ugu jawaabo marka hore heestaan ka jawaabaya ka bacdina barnaamijka tala wadaag ayaan insha Allah taala gali doona heesta waxa iskala qadar daarayga hadii aqtar daarayga heesteeda uga dheelo waan ka raali gelinayaa haddii dhegta ruux la jaro dalalku wuu joogayaa jaleelada geedu yaalla miraha laga jalaamsadaa jir iyo hadda jooga ubad cadmigu uu isjiirayaa hadana laba jacayl dhex yaalla sinaba kuma kala jarman ka joog war hooy ka joog war hooy ka joog waxbaa jiraaye ka joog jirin caashaqa ka joog Jawaahir waa saaxiib su'aali kale ay soo weydiisana marka la ka jawaabi doona hadii ilaa yiraahdo because barnaamijkan waa maanta inaan ka hadlo gabar ay soo weydiisay xitri ninkayga dib ugu haayaa caruur ma u haayaa mar walba waxaan ku sabraa caruurtayda horta waxaan rabaa meeshan hooyo Soomaaliyeed ah caruur haysta marka waxaan rabaa hooyo walba oo Soomaaliyeed inaan u sheego abaa dib ha ku sabrin adiga oo isdhaaya caruurtaada u danay caruurtaada ma danaynin caruurtaada dib ha ku beertay ma fahmaysaa caruurtaadi dib baad u siyaadisay markaad ila dib aan ku sabraaya ninkii ay dhibaayo ninkii ay dilaayo ninkii ay caynaayo ninkii horta hal mid ha haniyeysanin inay ilmahaasi farxad ku korayaan alashaan aabooda la joogo adoo isdhaxaayo ma fahmaysaa aabood ayagoo la jooga farxad ma haystaan ilmahaasi waxayse farxadda ku haysanaan kuu sheegayaa baayo ilmahan yarka ee saqiirka ah maskaxdiisu way cadawaana buub wixii lagu qoro baa ku qormaaya ma fahmaysaa marka ilmaha way arkaan maalin kasta aabooda ku dilaayo aabooda ku caynaayo adigii oo oynayo adigii oo maalin kasta ciil la oynayo cunugaaga markuu ku arko muxuu niyad iska dhahaya cunugaasi muxuu ku korayaa maskaxdiisa maxaa ku beermaya cunugaas ya ma asxaana u samaysa cunugaas mase dhib iyo mashaakil baa u horseeda cunugaas asxaana maadan samaynin because cunugaas bari waxa ilmo badan waxa arkaan dhahay aabahay hooyada waa necbaa jiray uu dili jiray uu caay jiray aabahay ma jecel hooyada aan jecelahay waan ogtiin Soomaalida inta badan ilmuhu waxay jecel yihiin hooyada iyo ehelkeeda aabaha iyo ehelkiisa inta badan ma jecelo maxaa sababay ma taqaanin aabaha fiican ee ilmihiisa u fiican ee aaba fiican waa la dhahayo waa kan ilmaha usoo shaqeeyo oo waxa cunaan u keeno laakiin farxad kale ma haystaan ilmaha hooyada bis farxad keenan meesha ciyaarta hooyada geenayso isbitaalka way geenayso dugsiga macalinka hooyada soo wacaya iskuulka macalinka hooyada soo wacaya aabuhu intaas warka ma hayo aabuhu wuu soo shaqeeyaa lacagtaas oo keena waa ninka ugu fiican la dhigi karo maanta waa nin reerkiisa dhaqday waxa ku soo haray mid kale oo meeshan caay dib ku la taagan oo ku caynaayo naaya dhilata naabahawas naaya hooyada nacla ku yaa maalin kasta ninku dhahaaya abaayo ilmahaaga ay daawasho halkaas u fadhiyaan dhibkaadii adoogad in kala dhex maraayo maxay tahay ilmahaas isxaanka u samaysay ilmahaas maxaa asxaana u samaysay inaa cuqdad iyo dhib ku koriso iyo nacaab ee aabahood nacaan moogiye maxaa kaloo abaaya asxaana u samaysay ya ilmahaaga cuqdad ha isaga korin adaga hadduu kugu xumaado oo ninkaan nin xun kugu noqdo
isaga tag naaw inaad dhahdi waa u sabraaya ilmahayga ugu sabraaya ilmihiina dhib iyo mashaakil ku korisid maalin walba ay ku arkaan inta ka buusano inta ka buusan yaa ku dila adag yaa ku dila ilmahaaguna ay daawasho u yihiin ay fiirsanayaan sida aabood kuu dilaayo wiilkaaga ciil iyo cudad aa ku korinayso isla hadaa xoog lahaa leed maanta waa ka celin lahayd gabadhaada ee jikada intay gasho ooyin la galayso asxaan umaadan samayn xabiibti dhib baad ku korisay ilmahaas iyo mashaakil iyo cudad ku korisay mid kale taan rabaa inaan idiin sheego Soomaaliyeed qayn hooyooyinka Soomaaliyeed qaasatan adiga ninkaagu markaa murmaysiin oo isdagaashantii fadlan ilmahaaga ha maqashiin fadlan ilmahaaga ka ilaali inaad dhibkaas adiga odaga idin dhex maraayo ee ilmahaagu ogaadaan waa arrin halis ah waa arrin ilmaha maskaxda dhibaato u keeni karto adiga ninkaa waa isku dhici kartiin bil aadanatiin ninkaan nin wuxuu ku noqon karaa bil aadana waa adiga naag xun waa noqon kartaa bil aadana taan waxaas dhan muhiim ma ahan ninkaas sidoo kugu xumaado kuma dhahaayo waa in uu kugu xumaan karaa ma fahamtay laakiin ilmahaaga abaayo ha tusinin in adiga odagan cadow isku tiin ilmahaaga ha tusinin dhibka adiga odaga idin dhex maraa ilmahaaga ha tusinin marka is caynaysiin oo is dagaalaysiin haddii xataa asaga uu kula soo maago ilmahaaga halkaas fadhiyo isaga aamus shib isaga leh waay ilmahaaga ayaa dhibaato badan uga imaan kartaa iyo niyad jab uga imaan kara aaboodii hooyo sacayna cunuga markuu arko niyad jab ku dhacayo marka ilmahaagii niyad jab ha iska gelin ma fahamtay ilmahaagii niyad jab ha ku abuurin ilmahaagii mashaakil abaaya iska gelinin waxaa kugula talinayaa marka adiga odagaan murmaysiin ilmaha inaad ka fogaatiin waa midda kuwa qodobka koowaad qodobka labaad waxay tahay ha ku fikirin ninka adiga kula nool oo ku qabo sida adiga rabto inuu kugula noolaado wax dhacaaya ma aha ma dhacaysa taas ninka adiga kula nool sida adiga aad rabto uma noolaanayo ee wuxuu u noolaana siduu asaga rabo marka adiga aad isku shidaysa ninkan inuu nin maxay tahay adiga rabto u noolaado oo waxa adiga rabto ku sameeyo oo adiga waxa rabto uu ku yeelo adiga stress kugu dhacayo because qofkaani adiga ma aha adiga kuma aha qofkaan ninkan adiga kuma aha ee ninkan asaga nafsidiisa nin u ah dabeecadaada ma laha ninkan rabitaankaaga ma rabiyo ma fahmaysa marka hadaa istiraado xoogga saar ninkan sida dabeecadaada ku qaadan lahaa meeshaas waxaa ku dhumaayo qoyska iyo reerki burbura ku imaanaya dabeecadiisa u daa dabeecadaada hayso meel dhaxan isugu imaado oo ku wada noolaa kartiin ma fahmaysa rabitaankaaga ha ku qasbin rabitaankiisa oo kugu qasbin meel dhaxan isugu imaado asaguna waxa kasoo tanaasulo adiguna wax kasoo tanaasulo bartaas Suleymaan reerka ku dhaqo ma fahamtay waxaa ku soo haray gabdho badan oo waxaa arkaa xoogga saari lahaa gabar ay arkayaan ninkii gabadhii isku fiican ninka hebel soo u yahay ninkaaga ku noqdo kuma noqonayo waay hebla ninkeed wuxuu necab yahay waxa laga yaabaa ninkaaga inuu jecel yahay hebla ninkeed wuxuu jecel yahay waxa laga yaabaa ninkaaga inuu necab yahay waxa laga yaabaa hebla dabeecadeedna adiga lahayn waxa laga yaabaa hebel naagtaas ninka qaba dabeecadiisa inuu ninkaagu lahayn marka ha isku kalifin naag heblaayo ninkeedii soo u yeelay anigana kayga ay yeelo waa dhibaatooyinka ugu badan oo maanta haysto gabar ninkeeda hadii u keenaya mid kale waxay iska dhaadhicinaysaa ninkiina waa iyadan u keeno ma ku keenayo waaye dabeecadaas ma lahan ninkaaga dabeecadaas ninkaagu ma lahan marka ha ku qasbin adiguna ha ku qasbin ninkaan inuu heblaayo ninkeeda camal u noqdo ha ku qasbin ha isnabino intaa wax soo gadatay ha dhihin ninkaana isiiye ha dhihin ya ma fahmaysa marka waxaan kugula tali lahaa gabaray ilmahaagaas inaad dhib iyo qodad ku korin ilmahaagaas inaad iska dhibin ninkan Soomaaliyeed ee kula noolne sida adiga aad rabto kama helaysid sida la rabo Ilaahay baa laga helaa ma fahmaysa reerka dhisan u jeedid maamooyinka 10 cunug dhala u jeedid maamada ninka ay guursato ku agdaqooda u jeedid way on sabartaa sabar ay ku gaarta bartaas iskamay gaarin iskamay keenin iskamay yeelin sabar ay barta ay taagan tahay ay ku gaartay maanta iyo darajada ay taagan tahay way ku sabartay hadii aad awoodid inaad shib inta tiraahid dibka ninkaas oo kugu haay aadan isku istreesin ee aad dhagaha jub ka siisatid ma fahamtay oodan u fara una xirin waan hubaa inaad doorka leedahay gaaraysa iyo yoolkaaga gaaraysa laakiin markii aad tiraahdo saan muxuu igu sameeyay ninkan aad tiraahdo dib leeg soo siyaasatay ma ila socota ya waay ninkaani adiga saa rabto uma noolaanayo anaga hooyooyinkeena hore u fiirso nin may raaci jirin nin may ka daba ordi jirin nin may xoog saari jirin waxay xoog saari jireen reerkoodaas iyo ilmahooda wayna ku aflaxeen hooyooyinka Soomaaliyeed u fiirso naag laba nin soo furto waa yarta inta ugu badan hal inaad soo furo ninka labaad ku ekaatay anaga maanta maxaan joognaa 3 iyo 4 iyo 5 marayna 5 cunug oo kala aaba ay 5 cunug oo kala oo maxaa wadnaa oo kala aabaha wadnaa okay marka adiga hal mid kugu fiican oo kaliya waxa kugu fiican oo talab kugu siin lahaa waxay tahay nafsadaada inaad inta ka fikirtid ninkan aad u jawaabinba afka yam waxa rabaa ho waxa ma yaalan saana rabaa waa kan bas ana ku tusina inuu waasha ninkaas
والله أنا كنت سنة أسوق كده ورد أنا ناكتي وينعضي ناكت محلها هذا شيء ناكت ثلاثة كذا بار ناكت أسوق لها ياركيسا ما فاهم يسا وكقولي ست ما أنت عندين كل جاي ست كالك وهذا أفرن وهذا أحرن وكقولي ست كما هلا إنك كوفي عن ninka ku fiican kuma jiro waxaan ka hadlayaa dhibaatada gabdhaha ka cabanaya ee xagga nimanka ah ee dhees anigoo urlo iga tagay anigoo walco iga tagay ilmihii wax iga reebaan laha qurbaha wada naqaanaa maanta ilmihii wax iga reebaan laha isbitaalkii markaa galo cunugaa la igu qalay 3 maalin isbitaal ku jira ilmihii qof iga reebtaa laha taas waa dhibka aan ka hadlayo ilmahaaga markaa 9 bilood gaarto qofka eel kugu dhow u geyso ha weydiinin ilmaha iga reebay iyo hebel oo ma ii sameeyay hebel oo kaale ii soo adeegay ha dhihin dhexda inta xadatid oo ilmaha cid u geysatid oo isbitaalka tagto waliba ha wicnaan ku dhiilaa isbitaalka tagtida soo dhashid adii cunugaaga isximbaarsan guriga imaada fajacay ku noqonaysaa because nimanku waa nacab yihiin naag ka kaaftoonte ma arka karaan naag ka kaaftoonte isku day inaad ka kaaftoonto ninkan ma fahmaysaa nolol wadaagtiin waa run hadduu ku dhibo oo ku xumeeyo oo ku siciyo abaay isku day inaad ka kaaftoonto waad ka kaaftoomi kartaa annaga isku saaf gareynay nin lagama kaaftoomo nin lagama maarmo annaga saaf isku dhahnay ninka asagoo kula nool oo sariirta kula jifo ayaad ka kaaftoomi kartaa ma fahmaysaa waad ka kaaftoomi kartaa haddaadan ku dhuqdhuqayn ninkan oo taleefanadiisa ka daba ordin oo xaguu aada ka daba ordin oo kaale caawidin oo adiga hawshaada qabsato wuxuu arkayaa inaad ka kaaftoontay dhib uma laabna jabna uma laabna nin naag ee ka kaaftoonta arkay waa dhibka ugu weyn oo heestaa waxay tahay inay naagtaas asaga ka kaaftoontay ma fahmaysaa ma la socotaa ya marka ilmahaagana cuqdad hay isaga korin iyo ooyin iyo dhib isla hay isaga korin abaa ilmahaaga yaryarka ah qalbigooda waa cad yahay wixii lagu qortay galaya ilmaha qalbigooda hadda sinin hadda ka hor Djibouti waxaan ku arkay maamo iyo nin isqabo ninka hooyada uu dili jiray waagay ilmaha yarrayn 3 wiil haysataa uu dili jiray uu rafaadi jiray uu sicin jiray wiilasheed wiil kamid ah weynaaday oo nin weyn oo qamarjiyo noqdo ma sha Allah marka maalin martii aan u hayn waxaan xasuustaa odaygiya qaylinaayo maamadii inuu dilo rabaa markaas uu kormeeraysan maamadii shib ma hadlayso xagga waxa taagan wiilkeedii taagan wiilkana ma hadlaayo odaygi marka wuxuu leeyahay iga cisho hadhowtii soo qayri doontaa hadhow soo boodi doontaa maamada ilkaan hore ka dhacsanta asagana ka riday ma fahmaysaa soo u dilay marka wiilku wuxuu leeyahay adiga aabe hooyaday kula ma hadlaysee sababta adiga u fafakanaysa maxay tahay waa inaad ka xog badan tahay soo ma hooyaday ya hooyaday kula ma hadlaysee adiga ha ku boodboodin hooyaday kuma soo socoto halkaas ay fadhisaa laakiin adiga laga amaan helo odaygi waa gacan inuu xidhisho baratay gacantiisa waxay baratay inuu naagtan dilo marka uu fakanaa ma fahamtay waa baxsan naagtii inuu xora qabto dilo raba laakiin uga cabsana wiilkeeda ilaahay u deesto wiilkeeda halkaas taagan uga baqaaya because hadduu maamada qabto wiilka qabanaya asaga marka wuxuu ka baqaaya wiilkiisa soo ka baqaaya wiilkaas markuu ku sheekay wuxuu ku leeyahay nolol farxad la kuma soo korin hooyadii aabe uu dili jiray hooyadii aabe ilka ka daadi hooyadii maalin kasta way oon jirtay hooyadii maalin kasta aan ahayd marka waa yahay cunugaasi hooyadiis masxaan ay u samaysay aabihiisi asaga cadownimo ay dhex dhigtay Soomaa cadowtinimo ay dhex dhigtay heer labadoodii kala shakiyaan ay maraysaa marka hooyadii aabihii ay isna aan maraysaa heer aabihii wiilkii oo aabihiis inuu dilo u soo xidxiita la gaaray yaa gaarsi hooyadiisa gaarsiisano hada isaga tagaleed adagaan dhibka badan oo maalin kasta dilaayo ee ilmaheeda karsan lahayd ilmaha dhibqubtaas ma gelin lahayn codada ugu badan oo cunugaas aabihiis u qabilaa waxay tahay aabe ima soo korin oo dhigla oo kaliya ma fahmaysaa marka ilmahaaga codada ka daa ilmaha codada ka daabaayo ilmahaagii aabahoodna ha istusin inay cadow isku yihiin ninkaani hadduu nin xun ku noqdo oo kuu soo jeedsan waayo oo adduunyo kala qabsada adiguna adduunyadaada kala qabsadee ilmahaagana hayso nafsadaadana wax macaan siiso seexo soo kacdo faraxsan subaxdii maxay tahay faraxsan shaqeyso ilmahaaga iskuulka geyso intaas baa qabsan kartaa qaasatan hooyooyinka Yurub jooga nin lacag ma uga baahnaba ceeray qaataan Soomaa ceebtaadii ilmahaaga isku qabsacbaayo maxaa nin ku daba dhigay ya adiga nafsadaadii shahwadaada hadaa la tashatid goday ka ridaysa goday ku ridaysa waliga Allah dareenkaaga la tashanin because dareenka waa mid umada hog ku rido waa waxa gabdhaha hog ku rido waa dareenkooda dareenkaaga abaa la tashanin ee nafsadaada maxaa xal u tasho nafsadaada maxaa xal u ah taasa ku fiican inaad u tashatid waa sida aniga ila tahay amba aniga sameyn laha sida aan idin sheegay ma fahmaysid marka waxa sameynaysaa dareenkaaga hala tashanin ee nafsadaada la tasho ee ilmahaaga mustaqbalkooda ee ilmahaaga maxaa u fiican ee ilmahaaga maxaa u xun taas aan ku kula talin lahaa waa idin salaamaya videoga si dheeraanaya inaan laba qayb ka dhiga maahane waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuh saaxiibadayda qaaliga ah aad iyo aad ayaan kaga mahad celinaya daawashadiina